السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود وهذا FBL Somali magacaygu waa Daahir Cabdilla Cali waxaan idinku soo dhaweynayaa mar kale channelkeena FBL Somali ee YouTube-ka iyo dhinacyada kale ee social media aan ku leenahay Instagram-ka, Twitter-ka iyo Facebook-ka haddii aad dhawaan ugu soo biirtay waxaan ku leenahay soo dhawow halkan waxaan idinku soo gudbinaa Fantasy Premier League iyo wararka la xiriira anagoo si joogto ah ugu daabacnaa page-keena xogaha la xiriira FPL-ka sida ciyaaryahanada qiimahooda ay sare u kacayaan kuwa ay hoos u dhaceen iyo xogaha dheeraadka ee la xiriira qaab ciyaareedyada ciyaartoyda markaas aad qof walba maamulo ah uu ku tashanayo toddobaadkii la soo dhaafay waxaa inoo soo gabagaboobay isbuuc ciyaareedka 26aad oo ahaa double game week ama in koox ay laba kulan ay ciyaarto double game week hadda ugu dambeeyana wuxuu ahaa mid kamid ah kuwii ugu waaweynaa ee abid fantasy intuu jiray la ciyaaray waxaa jiray ciyaaryahanno dhibcaha ugu badnaa keenay ciyaaryahanadaasna waxaa ugu horeeyay ninka lagu magacaabo Gareth Bale oo ahaa differential oo toddobaadkii hore aan ka hadalnay maadaama uu Mourinho culeys u saarnaa wuxuu ku qasbanaaday in ciyaartiisii ula lahaa kooxda Burnley iyo Fulham uu u ciyaaro si aan wax kala reeb si aan lahayn uusan waxba lamuusan harin oo Gareth Bale ayaa wuxuu keenay 21 dhibcood Gareth Bale ayaa ugu horeeya oo 21 dhibcood keenay asagoo dhaliyay 2 gool sidoo kalena caawiye ka ahaa mid kale si guud markaan fiirino ciyaaryahanada dhibcaha ugu badnaa keenay waxaa ugu horeeya goolhayaha oo ah Gita oo ciyaara kooxda Crystal Palace ayaa ka qayb qaatay in labada kulanba ay shabaqiisa u ilaashado oo eber iyo kulankii kale oo ay la galeen Fulham iyo Manchester United ayaa wuxuu keenay meeshaas wuxuu ka soo aruursay dhibco gaaraya 16 dhibcood markaan fiirino toddobaadkan daafacyada si fiican bay u ciyaareen waxaad moodaa in ay kamid ahaayeen kuwii dhibcaha ugu badnaa ay ka soo xaroodeen daafaca ugu horeeya aan fiirinayno waa Bartley oo u ciyaara kooxda West Brom Bartley ayaa kulankii ugu horeeyay maadaama West Brom ay laba kulan lahayd kulankii ugu horeeyay wuxuu la ciyaaray kooxda Brighton Bartley gool ayuu dhaliyay sidoo kale shabaqiisa ayuu ilaashaday maadaama uu daafac yahay 3 dhibcood oo bonus ah uu helay oo bonuska waa dhibcaha dheeraadka ah ee lagu abaalmariyo ciyaartoyga marka uu si fiican u ciyaaro kulankii kale hal eber ayaa looga badiyay laakiin 2 daqiiqo 90 daqiiqo ayuu ciyaaray 2 dhibcood ayuu ka helay sidaas ayuu 17 dhibcood toddobaadkan ku soo xareeyay Christensen oo ciyaara kooxda Chelsea ayaa keenay 17 dhibcood asna Christensen ayaa labadii kulanba wuxuu ciyaaray 90 daqiiqo uu ciyaaray labadii kulanna shabaqiisa uu ilaashaday kulamadan Chelsea waxay u ahaayeen tijaabo adag waqtiga Thomas Tuchel laakiin waxaad moodaa inuu tijaabadaas ku guuleystay waxa uuna ka soo xareystay halkaasi dhibco gaaraya 4 dhibcood haddii aad Manchester United iyo Liverpool aad ka qaadatay 4 dhibcood waa tijaabo guuleysatay ee la micno tahay Christensen marka 9 dhibcood ayuu ka helay kulankii hore ee Manchester United oo la ciyaareen maadaama uu shabaqiisa ilaashaday dhibco dheeraadka ahna uu helay 3 dhibcood kulankii ku xigay 8 dhibcood ayuu helay sidaas ayuu 17 dhibcood ku keenay Keane ayaa ku xiga Keane wuxuu ciyaaraa kooxda Everton ayaa iyaduna labadii kulan ay lahayd badisay ciyaaryahanno badan ayaa lagu tashanayay oo ay kamid yihiin Calvert-Lewin oo aan sidii la filayay aan u ciyaarin laakiin halkaasi waxaa si fiican u ciyaaray ninka lagu magacaabo Richarlison iyo Sigurdsson oo min gool iyo min caawin sidoo kale sameeyay Keane ayaa wuxuu keenay 9 dhibcood kulankii ugu horeeyay ay la yeesheen Everton kulankii ku xigayna wuxuu ahaa kii ay la ciyaareen kooxda West Brom oo ay hal eber uga badiyeen 90 daqiiqo ayuu ciyaaray 2 dhibcood oo dheeraad ahna uu helay sidaas ayuu 8 dhibcood ku keenay markii la isku dardarana 17 dhibcood ayuu keenay Gary Cahill iyo Ward oo u wada ciyaara kooxda Crystal Palace ayaa iyaguna min 16 iyo 15 kala keenay dhinaca khadka dhexe waxa ugu horeeya sidaan hore u sheegayba ninka lagu magacaabo Gareth Bale oo 21 dhibcood soo xareeyay Mahrez oo maadaama kooxda Manchester City ay tahay koox Pep Guardiola uu mar walba ciyaartoyda isku bedelo ayaa kamid ah ciyaartoyda sida lama filaanka dhibcaha ugu badnaa ka keenay kooxda dhinaca Manchester City waxa uuna keenay 17 dhibcood Mount oo ciyaara kooxda Chelsea oo dhaliyay goolkii guusha Liverpool kaga badiyeen ayaa keenay dhibco gaaraya 14 dhibcood
Richarlison oo u ciyaara kooxda Everton ayaa keenay 17 dhibcood kulankii ugu horeeyay ay la ciyaareen Everton kooxda Southampton goolkii ay ku badiyeen asaa dhaliyay sidoo kale kulankii ku xigayna goolkii ay West Brom kaga badiyeen asaa dhaliyay sidaas darteed wuxuu keenay 17 dhibcood oo ayuu halkaas ka soo xaray Gabriel Jesus ayaa noqday ninka kale ee weerarka ah ee toddobaadkan sida cajiibka u ciyaaray waxa uu keenay 14 dhibcood Gabriel Jesus waxa uu kulankii ay la ciyaareen Manchester City ee Wolves waxa uu dhaliyay 2 gool kulankii kalena 29 daqiiqo oo kaliya ay ciyaaray oo gadaal ay ku soo galay sidaas ayuu keenay 14 dhibcood markii la isku dardaro dhibcahaasna waa 181 dhibcood ayaa la kala keenay ay isku darkood keeneen haddii aan fiirino doorashada kabtanimada toddobaadkan kabtanadii ugu badnaa waxaa la saartay ciyaaryahan Bruno Fernandes oo u dhacay Crystal Palace iyo Chelsea waxaana saaratay tiro maamulayaal gaaraya 1,409,000 oo qof ayaa saaratay kabtan 6 dhibcood ayuu keenay Harry Kane ayaa ku xigay oo Burnley iyo Fulham wajahayay waxaana kabtan saaratay 1,058,000 ayaa saartay kabtan waxaana keenay 8 dhibcood Salah ayaa ku xigay oo 832,000 oo qof ay saaratay kabtan waxaana keenay waxa uu soo xareeyay dhibco gaaraya 5 dhibcood markaan fiirino jibaarada isticmaalka jibaarada oo kale jibaaradii triple captainka ayaa ugu badnaa oo aad loo saartay ciyaaryahanada la saartay waxa koow ka ahaa Harry Kane oo ay saarteen 239,000 oo qof waxaana keenay 8 dhibcood marka jibaarkaas lagu dhuftana waa 24 dhibcood Fernandes ayaa ku xigay oo 135,000 oo qof ay saarteen 6 dhibcood ayuu keenay markii la isku dhuftana waxay noqonaysaa 18 dhibcood Son ayaa ku xiga oo 72,000 ay saarteen soo keenay 14 dhibcood markii jibaaradaas 3 lagu dhuftana waa 42 marka fiirisid marka qaab ciyaareedka sida loo iyo jibaarada triple captain oo kale sida filay ma aysan noqonin markii aan fiirino si guud isticmaalka jibaarada triple captain ayaa ugu badnaa oo waxa saartay 689,000 oo qof waxa ku xigay bench boost oo waxa saartay 502,000 oo qof wildcard ku xigay oo waxa saartay 265,000 free hit ayaa ku xigay oo ay saarteen 85,000 toddobaadkan waxyaabaha laga diiwaan galiyay waxa kamid ahaa in daafacyada ay noqdeen kuwa ugu dhibcaha badnaa oo daafacyada Stones iyo Diaz oo Man City ciyaara Kyle Bartley oo ciyaara kooxda West Brom Maguire Shaw oo ciyaara kooxda Manchester United Holgate iyo Rudiger ayaa kamid ahaa kuwii dhibcaha 10 ka badnaa keenay iyo sidoo kale kuwaan uga soo hadalnay ciyaaryahanada sida ay kamid yihiin Gary Cahill iyo Ward marka toddobaadkan wuxuu ahaa toddobaad cajiib ah haddii aan fiirino toddobaadka soo socda double game week 27 oo ay laba koox ay leeyihiin double game week waana Manchester City iyo Southampton toddobaadkanna labadaas ayaa double game week leh haddii aad weli aas leedahay ku tasho waxaa laga yaabaa inaad meesha dhibca ka keentid